maxaa ka soo kordhay shirka ka soconaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaasoo u dhaxeeya hoggaanka ugu sarreeya golaha mustaqbalka Soomaaliya madaxda dowlad goboleedka Jubbaland iyo Puntland ay qayb ka yihiin iyo siyaasiyiinta markaasi madasha samata bixinta Soomaaliya shirka oo galay maalinkii saddexaad isla markaana wali markaa dhinacyada qodobada qaar isku mari laayihiin xogihii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagi doonaa laba qodob oo shirka markaasi caqabad ku noqday in uu sii socdo ama markaasi la gaaro natiijo kama dambaysa go'aanna dhinacyada isku raacaan ayaan qaybta dambe kula wadaagi doonaa laba qodob oo xasaasi ah oo Shariif Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe ay isku mari laayihiin ayaan ku lafaguri doonaa qaybta dambe ee warbixinta wada soo dhawow haday tahay booqashadaadii ugu horeysay nagu soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo muuqaalka noo like gare qaybta faallada ah ee commentigana aragtidaada ku dhiibo وحقاق magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa wali ka soconaya shir maalinnimadii Khamiista halkaasi ugu bilowday golaha markaasi madasha samata bixinta Soomaaliya siyaasiyiinta ku mideysan iyo hogaamiyaasha maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland shirka oo furmay maalinnimadii Khamiista ahayd waxa uu ahaa barbilowga shir markaasi maalinkii saddexaad galay bilowgii shirka madaxda khudbada ay jeediyeen aad xasaasi ah waxaana ugu saameyn badnaa khudbadii uu jeediyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani taasoo ahayd mid si weyn u bilgishay masraxa isla markaana dhammaan bulshada Soomaaliyeed si weyn saameyn markaasi ugu yeelatay khudbada Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu markaasi kaga hadlay xaaladda dalka iyo sidoo kale ujeedkooda Kismaayo u tagay Dani waxa uu yiri waxaan maqlayay dad badan oo leh shirka Kismaayo ka dhacaya iyo dadka halkaas isugu tagay wax natiijo ma soo saari doonaan waxaana uu yiri waxaan halkan u nimid maahan in aan dad eedeyno ama dad aynu dhaliilno diyaan dad eedeynayno ama dad aynu dhaliileeno halkeenna inagoo joogna ayaan markaasi dad eedeyn lahayn safar maana soo galin in aanu dad eedeyno ama aynu wax dhaliilno oo kaliya waxaanu doonaynaa waxa halkan lagu heshiiyay ka soo baxay inay noqdaan wax dhab ah oo si dhab markaasi loogu shaqeeyo inna inaan dhaliilno halkan uma imaanin waqti aynu wax ku dhaliilno safar aynu ku soo galnana nagama go'ayo yiri Saciid Cabdullaahi Dani faroola ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay oo Puntland ka socday senatarada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kamid ah weerar afka ku qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo sheegay in Xasan uu ka shaqeynayo kala goynta Puntland oo qayb kamid ah hadaba u maamul dhisay marka laga soo tago hadalladaasi soo kale madaxweyne Axmed oo Xasan ugu baaqay inuu miiska wada hadalka ku soo laabto waxa wali sii soconaya shirka dhinacyo badan ayaa halkaasi marka ay shirka kaga qayb galay shalay oo Jimcaha ahayd waxay dhinacyadu yeesheen kulamo gaar ah waxaana madaxweyne Shariif Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe kulamadoodu ahaayeen kuwa xasaasi ah oo aan loo kala kicin waxa la filayaa in shirka markaasi uu sii socon doono shalay waxa la filayay in warmurtiyeed la soo saaro laakiin dib ayuu u dhacay wararka hor dhacay in shirka Heleno Kismaayo naga soo gaariyay waxay tilmaamayaan in madaxweyne Shariif loo badinayo inuu noqdo gudoomiyaha golaha mustaqbalka halka Axmed Madoobena la filayo inuu noqdo markaasi gudoomiye ku-xigeenka golaha mustaqbalka Soomaaliya waxa sidaas meesha kaga baxaya Dani Maxamed Xuseen Rooble Xasan Cali Qayri sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo iyagu dhamaantood weyn doona hoggaanka ugu sarreeya golaha mustaqbalka taas oo hoos u dhigaysa saameyntooda siyaasadeed iyo ololahooda doorashada madaxweynaha 2026 dhammaan xubnaha Kismaayo isugu tagay waxay doonayeen in mid kasta oo kamid ah loo magacaabo hoggaanka ugu sarreeya golaha mustaqbalka taasoo sare u qaadaysa mid kasta oo kamid ah oo xilkaasi loo magacaabo ololihiisa iyo sidoo kale campaign-ka 2026 hadaba wararka soo baxaya tilmaamaya in Shariif loo badinayo gudoomiyaha ku-xigeenkana Axmed loo badinayo waxay ka dhigan tahay in dad badan oo ka tirsan golaha markaasi halka ku shiraya ay ka caroodeen Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu horeeya waxa uu si weyn u diidan yahay in Shariif loo magacaabo gudoomiyaha golaha mustaqbalka Soomaaliya taasoo uu Dani u arko mid hoos u dhigaysa saameyntiisa siyaasadeed iyo ololihiisa 2026 Shariifna uu markaasi sare u kac markaasi uu ku helayo ololihiisa doorashada 2026 Dani waxa uu doonayay haddii uu waayo hoggaanka ama gudoomiyaha inuu yaraan loo magacaabi doono ku-xigeenka laakiin waa waayay Qayri sidoo kale Maxamed Xuseen Rooble Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame mid kasta oo kamid ah waxa uu doonayay in isagana markaasi uu noqdo gudoomiyaha golaha mustaqbalka Soomaaliya laakiin Shariif ayuu badan tahay in loo magacaabi doono wararka hor dhacayno Heleno waxay tilmaamayaan in dhinacyada qayb kamid ah isku raaceen in Shariif uu noqdo gudoomiyaha Axmedna loo magacaabo ku-xigeen halka sidoo kalena xogeeyo markaasi
loo magacaabi doono siyaasiyiinta kale midkood markaasi cidda qaadanaysana weli aan markaasi loogeyn. haddaba qodobada qaar ee siyaasiyiinta markaasi kulankan ka qaybgalaysa ay caqabada u arkeen waxaa ka mid ah in loo magacaabo Shariif oo dad badan ay kasoo horjeedaan gudoomiyaha in uu markaasi qaato golaha mustaqbalka, ku-xigeenkana Axmed uu qaato. taas waxay keentay in dhinacyo badan ay si cad markaasi u diidaan. Shariif waxa uu markaasi sheegay dhankiisa haddii aan loo magacaabin gudoomiyaha golaha mustaqbalka inuu dib ugu laaban doono magaalada Muqdisho, isla markaana tallaabooyin gaar ah uu qaadi doono oo uusan qayb ka sii ahaan doonin madasha siyaasiyiinta golaha mustaqbalka Soomaaliya. Dani sidoo kale aad ayuu ugu careysan yahay, waxaana uu ku hanjabay inuu ka bixi doono shirka oo uu ku laaban doono Garowe. dhinacyada kale Maxamed Xuseen Rooble iyo Xasan Cali Qeerri, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyagu waxay sheegayaan in ay kasoo horjeedaan habka loo qaybinayo golaha mustaqbalka Soomaaliya hoggaankiisa ugu sarreeya. dhammaan dhinacyada halkaasi ku shiraya mid kasta oo ka mid ah waxa uu doonayaa in uu qayb ka noqdo hoggaanka ugu sarreeya golaha mustaqbalka Soomaaliya, laakiin marka la fiiriyo waxaa muuqata in markaasi ay dhinacyadu ku kala tegi doonaan haddii heshiis rasmi ah aysan ka gaarin. waxaa sidoo kale weli markaasi miiska u saaran qodobada dastuurka iyo sidoo kale nooca doorasho ay doonayaan in ay dalka ka dhacdo, laakiin iyadoo aan la gaarin qodobadaas waxayba isku mari laayihiinba madasha markaasi siyaasiyiinta Kismaayo ku shiraya sida markaasi ay noqonayso hoggaanka golaha mustaqbalka Soomaaliya. shirka oo galay maalinkii saddexaad ayaa weli markaasi waxaa caqabad weyn markaasi ku ah oo hortaagan habka loo qaybsanayo hoggaanka ugu sarreeya golaha mustaqbalka Soomaaliya. siyaasiyiinta ayaana weli markaasi ku kala aragti duwan sida ay noqonayso qaab dhismeedka golaha mustaqbalka Soomaaliya. magaalada Kismaayo ayay weli fadhiyaan dhinacyada, waa ay doodayaan, waxayna ka doodayaan sida markaasi loo qaybsanayo hoggaanka ugu sarreeya golaha mustaqbalka Soomaaliya. weli muusan furmin markaasi bogga ku saabsan nooca doorasho ay doonayaan dhinacyadan inay dalka ka dhacdo ay miiska soo saaraan, sidoo kale aragtidooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka weli markaasi ma aysan falanqeyn. waxayna u muuqataa in shirka oo 3 maalmood loo qorsheeyey uu qaadan doono wax ka badan 4 ilaa 5 maalmood oo uu sii socon doono. Kismaayana weli markaasi dhinacyada ay fadhin doonaan. haddii maanta dhinacyada aysan ku heshiinin qaab dhismeedka golaha mustaqbalka, waxay u badan tahay in lagu kala tegi doono shirka magaalada Kismaayo ka soconayo, isla markaana mid kasta halkii uu ka yimid uu dib ugu laaban doono. Jubbaland ayaa ku dadaalaysa sidii uu markaasi shirka u noqon lahaa mid ay ka soo baxdo natiijo wax ku ool ah oo dhinacyada markaasi ay gaaraan heshiis rasmi ah oo lagu dhisayo markaasi golaha mustaqbalka Soomaaliya qaab dhismeedkiisa, looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale nooca doorasho ay doonayaan iyo wax ka beddelka dastuurka aragtidooda ku aadan. laakiin waxaa muuqata in weli markaasi dhinacyada ay ku kala aragti duwan yihiin qaab dhismeedka golaha. haddaba waxaa jirta markaasi 3 qodob oo kale oo shirkan markaasi caqabad ku ah. 3 qodob waxa ay markaasi yihiin in Dani uu doonayo inuu ka mid noqdo hoggaanka ugu sarreeya golaha mustaqbalka, waa caqabada koowaad ee shirka markaasi dib u dhigi karta in uu sii socdo. qodobka labaadna waxa uu yahay in Shariif uu doonayo inuu noqdo gudoomiyaha golaha mustaqbalka Soomaaliya, halka sidoo kale qodobka saddexaadna uu yahay in dhinacyada dhammaan mid kasta oo ka mid ah uu doonayo inuu ka mid noqdo hoggaanka ugu sarreeya golaha mustaqbalka Soomaaliya. dhammaan 3daasi qodob waxay yihiin kuwa caqabad ku ah in shirka uu sii socdo, isla markaana dhinacyada ay ka heshiiyaan qaab dhismeedka golaha mustaqbalka Soomaaliya. haddii markii hore laga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka ay dhinacyadan markaasi ay ka wada hadli doonaan oo heshiis ka gaari doonaan, waxayba isku mari laayihiinba qaab dhismeedka golihii mustaqbalka Soomaaliya ee ay ku wajihi lahaayeen fila Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. taas waxay u muuqataa inay tahay caqabad weyn oo dhinacyadan markaasi hortaagan in ay gaaraan heshiis rasmi ah oo kama dambaysa oo ay ku dhisayaan golaha mustaqbalka, kadibna ay kusii ambaqaadayaan ka doodista nooca doorasho ay doonayaan inay dalka ka dhacdo iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka aragtidooda ku aadan. aad ayay dhinacyadu isugu mari laayihiin qodobada qaar. shirka Kismaayo ayaa marxalad markaasi adag galaya marba marka ka dambeysa. dooda dhinacyada ee miiska saaran sida xogaha aynu ku helayno iyo sidoo kale ila ka agdhow shirka Kismaayo ay noo xaqiijiyeen waxa ay tahay mid markaasi aan weli dhinac u dhicin nooca ay doonayaan inuu noqdo golahooda.